Assalaamu calaykum waraxmatullah. Coronavirus waxaanu dunidu kusii faafaya fara badanna ku haya. Dad badan ayaa u geeriyooday cudurkaasi coronavirus. Kumanaan qof ayaa la diiwaan geliyey oo u dhintay caabuqaas corona. Qaarna ay sariir u saaran yihiin. Mar dhow ayaa waxaa la sheegayaa in Yurubta ay aad ugu sii faafayso coronaha. Halka uu Shiinuhu boqolkiiba 70 dadka ku dhacay cudurkaasi corona oo kasii bogsanayaan. Qaarad Yurub ayaa waxaa la sheegay inay si ba'an ugu sii faafayso cudurkaasi corona. Waayo Yurub waxaa ku badan dadka da'da ah. Waxaa ku badan dadka waayeelada ah. Cudurkan wuxuu aad ugu daran yahay dadka da'da ah. Caalamku wuxuu galay xaalad aan hore loo arag. Suuqyada saamiyada oo dhulka galay. Khasaarihii ugu darna Isniintii aan soo dhaafnay suuqa saamiyada New York wuxuu gaaray meeshii uu hooseysay tan iyo dhaqaale burburkii 2008 waxaana loo bixiyay Isniinta madow badnida khasaaraha dhaqaale daafaha caalamka. Talyaaniga isbuucii aan soo dhaafnay hal maalin kaliya waxaa corona u geeriyooday 133 qof, taasoo geerida guud ee dalka Talyaaniga ka dhigayso 463 qof. Talyaaniga waa wadanka ugu badan marka Shiinaha iyo Koonfurta Kuuriya laga soo tago. Arrinta sii faafiyay dhimashada badiya ayaa ah in dadka Talyaaniga inta badan ay yihiin dad waayeel ah. Cudurkana wuxuu aad ugu daran yahay dadka tabarta daran. Talyaaniga kaliya ma aha, guud ahaaneed dadka Yurubta ku nool ayaa waxay u badan yihiin dad da' ah oo dhalinyartu ku yar yihiin. Talaadii aan soo dhaafnay waxaa dalka Talyaaniga oo dhan loogu dhawaaqay xaalad degdeg ah in 60 malyan oo qof ay gurigooda ka soo bixin. Fayruskan Talyaaniga wuxuu u bedelay goob xaalad xun ku jirto. meelihii malaayiinta dalxiisayaasha ay tegi jireen maanta waa cidlo. Dalka Jarmalka Isniintaan soo dhaafnay hal maalin kaliya waxaa laga helay 902 qof, taasoo tirada guud ka dhigayso 1112 qof. Caalamku wuxuu galay xaalad aad u adag, gaar ahaan wadamada Carabta sida Khaliijka. Aad ayuu ugu faafay. Qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay, 30% ayuu hoos u dhacay. Waa khasaaro aan weligeed la arkin muddo 30 sano ah, taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha riyaalka Sacuudiga marka lagu sarfayo doolarka Mareykanka. Fayruuskaas wuxuu saameeyay masaajida uuna ka mid yahay Kacbada. Waxaa la arkaa Kacbada cidlaha markii ugu horeysay kadib markii uu Sacuudiga joojiyay fiisaha cumrada. Sidoo kale caabuqan corona wuxuu galay dunida ciyaaraha, wuxuuna ku dhacay dad badan oo la yaqaano uuna ka mid yahay kalagaha guud ee kubadda cagta ee Lazio Nicola Zaniolo, macalinka kooxda Arsenal Mikel Arteta, ciyaartoyda kooxda Juventus Daniel Rugani, ciyaartoyda kale ee Sampdoria Manolo Guardini iyo Hassan Mudio oo Chelsea iyo Daniel Rugani Juventus, iyo waliba kubadda kolayga iyo kubadda cagta Real Madrid. Isbuucii la soo dhaafay isbuuc ka horeeyay horyaalka kubadda cagta ee Talyaaniga ee Serie A waxaa la ciyaarayay daawadayaal la'aan. Talaadadii la soo dhaafay ayaa waxaa la laalay gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa ciyaaraha ee Talyaaniga gudihiisa. Ma jiraan kulamada heerar kala duwan ee Premier League, Bundesliga, Serie A, dhammaan iyo Eredivisie Holland dhammaantood la joojiyay. Wax ciyaaraha toddobaadkan ma jiri doonaan sababo ku aadan caabuqa coronavirus oo si weyn saameyn ugu yeeshay kubadda cagta. Kubadda cagta ayaa dhammaan la joojiyay, xitaa tartamada Yurub ee waafiyada ku dhawaaqday in toddobaadkan la ciyaari doonin. Guud ahaaneed mawduucina maanta intaas ayuu ogyahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in caabuqan coronavirus oo caalamka dhan khalkhal geliya naga badbaadiyo. Waxaan soo gaarnay gabagabada mawduucina maanta. Intaynu markale kulmayno waxaa idinkaga tagayaa fi amaanillah.